halkani waa iskuulkii qoton weyne ee boardingka ahaa waxaynu maanta dhagax dhigaynaa hoolkii gubtay ee ay dhismihiisii cusbaa waxaa inoogu deeqday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaana fulinaysaa hay-adda Tabantaabo waxaan uga mahad celinaynaa marka koobaad wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mar labaad waxaan uga mahad celinaynaa odayaasha ay ka soo shaqeeyay hawsha eegas wasiir cali maxamed waran cabde eegas wasiir farxaan aadan haybe wasiir maxamed xasan bare waxaan jeedaa suldaan maxamed xasan bare mawlid waris gudoomiye mawlid waris اللهم صل على محمد يسوع عبد الرحمن محمود با dhammaantood iyo odayaasha kale maxamed faarax aanashe uu ka mid yahay cid kastoo ka soo shaqaysay ama hawsha wax ka soo qabatay waa uga mahad celinayna ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daraan leenay halkan waxa ardaydu waxa ku jira 122 arday iskuulka 80 ka mid waa boardingka hoolkaas wuxuu qaadaa 40 ka aynu maanta dhisaynaa waa kii hore gubtay bedelkeedii oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo sakhireeyay wasaaradda waxbarashada hoolka ardayda u dhistay si degdeg ah waliba iyadoo markii ay gubashadu dhacdayna hay'adda Nedford ay degdeg inooga soo caawisay iyo muxsiniin kalaba kelmadda sida uu ku soo koobay aad buu ugu simaadsan yahay mar labaadka waxaan u yeerayaa gudoomiyaha ururka Tabantaabo hay'adda fulinaysa mashruucan ay ugu deeqday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska boardingka Qotoweyne gudoomiye maxamed cabdiraxmaan maxamed soo dhow gudoomiye mahadda koobaad ilaahay waa iskale mahadda labaad waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ugu horeeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo agaasimaha guudba sida sharafta leh maalintii koobaad boardingku gubtay ay ugu soo direen guddiga assessmentka sameeynayay ee eegtay waxqabadkii iyo dhibaatadii soo gaadhay dugsiga maanta oo la marayo dhagax dhigii ilaa maalinta shaqeynayay isla markaana ugu deeqay dugsiga in hoolkii ka gubtay bedelkiisii maanta loo dhagax dhigo loo dhameystiro aad baan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo ugu mahadnaqayaa siyaasiyiinta degmada Sababna ka soo jeeda iyo gacan libaax Axmed Macalin Haarunba waa ku mahadsantihiin sida dheefta leh runtii dawladda uga howlgasheen isla markaana kala shaqeeysan sidii boardingka loo soo gaarsiin lahaa hantidii ka gubatay way markana waxaan u yeerayaa oday kamid ah odayaasha deegaanka kana mid ah guddida dugsigan boardingka Qotoweyne sida weyn xalay noo soo dhaweeyay waa Faysal Cumar waxaan kaleeto aan halkan uga mahad celinaynaa marka hore Ilaahay baad mahad leh waxaan halkan uga mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska maanta noo dhamaystirtay hoolkii gubtay kuwaasoo si degdeg ah ugu soo gurmaday waajibkoodiina ka soo baxay waxa kale oon u mahadnaqaynaa madaxda علي محمد وران عدى صلادينتا سلطان محمد حسن برre iyo salaadiinta kale iyo xildhibaanada dhammaan waan u mahadnaqaynaa iyaguna qayb weyn ka qaatay una hawshooday maantana ku guuleysto Ilaahay uu ku guuleeyay nimankana waxaan u yeerayaa oday ganacsada oo ah gudoomiye hore guddida Isxaaq Carre waxa weeye maxamed faarax aynaashe soo dhow gudoomiye boardingkan asaaskiisa loo horeeyay waana laga soo sheekeeyay waanu shaqeynayo boqolyo googa qof ku jiray maqaadir baa shaqo kale oo daa u gubtay si degdeg ah waa loo soo jawaabo oo sheegteen waxa weeyaan wasaaradda tacliinta ummadda iyo dawladda xusba kulmiye ka tirsan ka asaasantay waxaan taa ku darayaa hoolka harayna haba dawlad baa ka soo qaadi ama jeebka yaa ka bixin doona haddii ay wadaashanay wassalaamu calaykum nimankana waxaan u yeerayaa Yuusuf Cabdullaahi Saciid Yuusuf Khidmo waxaan hadal ku soo ururinayaa kulli waftigan u socday arrinka horumarka ilaa shil waxba la dhurayay beeshaan ka soo jeedna waa beel nabadgeliyo
ونبتقلية كو على مصن وأستانا نبتقلية ومركز تبا كشقايسو هرمركز سومالي لان وضد لهي عاصمة كو أبوري تدك عاصمة نوي كل حد شلعب من ضد كلا على ورن عدة وحا مدحي سلا عدة هذه وحا ويان ووسيرك سومالي لان وو مدحوينهم باوهري وو قيمها بدل له inta nabadgelyo ka shaqeynayay tibo waxa ku cadada waa nabadgelyo maanta in nabadgelyo looga baqanayana maaha marka muxaafad iyo mucaarad iyo ganacsade iyo arday cid kasta waxa uu dano waa nabadgelyo aad iyo laxad marka nabadda aan ugu dadaalno horumar kasta nabadda u seesan al-amnu qabla al-iimaan iimaanka waxa koriya nabadgelyada kuma kana waxa si balaaran la soo dhaweysaan wasiir hore doomiye farxaan aadan heebo kamid ah ragga sida weyn ee balaaran uga qayb qaata horumarinta dugsigan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ana u mahad celinaya dhammaan ka soo qayb galayaasha iyo madaxdii aan wada soconay salaadiinta odayaasha kale dhaqanka ee mudakarka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland markuu gaaray masiibada ka dhacday ee dhalinyarada Ilaahay baa inoo badbaadiyay ubaxa soo koraya ee xoolihii iyo arigii laga reebay ee loogu talagalay inay hogaamiyaasha Britain noqdaan halkaas bay hogaamiyaasha ka soo baxaan halkii ay ku jireen ay hoygooda ahaa inuu gubtay iyadoo doorasho iyo campaign iyo waqti adag lagu jiro waa loo hawlgalay falillaahi alhamd waxaynu ku guuleysanay maanta waan waxba ka dhinayn inaynu gacanta ku hayno la bilaabayo dhismihii oo dhagax dhigayno wasaaradda waxbarashadu waa mahadsan tahay gudoomiyaha banka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda kale qaranka way mahadsan waxa mudan oo si milgale aan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo arintan ay aad u taabatay runtii oo dadaalkeeda iyo kamida dhalinteeda qayb weyn ka qaatay inay noo suurto gasho inaynu dawladdu si degdeg uga soo jawaabto horumarku deegaan kasta sida waxa ay ku xidhan tahay aynu dhalinyaradeena mustaqbalkooda uga talino aayahooda u qaabayno ee ugu dhiirana inaynu wax u taro u gargaaro gacan u siino tanna taasay qayb ka tahay wax kasto la qabtaana xukuumadda imika joogto bay u tahay wax qabadkeeda qayb ka tahay binaadamkuna wuxuu wax ku kala soocaa go'aan ku qaataa waxa weeye hadba sida wax qabadku yahay iyo wixii hore la qabtay iyo waxa dambe la qaban doono waxaan markaa uga socdaa waxa weeye kanna waa dhisayna insha Allah ta'ala kuwa dambe iyo qaar ka badan waa la dhisi doonaa 30 biraha solarka ah oo tuuliyaasha deegaanka horan iyo degmada loo qaybinayo gudoomiyaha lagu wareejin doono degmada Sabawanaag Khadar ayaa iyaguna la socda oo solarkii leerka saddex kuwii hore loo sameeyay qaar kale lagu kordhinayaa boardingka si dhalinyaradu iftiin habeenkii ay u hesho xitaa ciyaari karaan habeenkii insha Allah ta'ala tani tii horeysan maaha tii ugu dambeysana noqon mayso hore gaadhi dhan oo buuxa oo raashina oo sanad la meelaha ku filan baan filay raashinkiisa hadaanu 6 bilood baahayn iyo agabkii kale oo dhan la socda ayay xukuumaddu Nadford hay'adda u qaabilsan hay'adaas barakacayaashu ay soo bixisay raashinku baan leeyahay kaydka raashinka ay soo bixisay oo degdeg ahaa oo aanay muddo yar kooban u dhaxaysay marka waxa la yiraahdaa man la yashkuru naas la yashkuru Allah wa xukuumadeeni xaq bay nagu leenahay dadka u talisaynu ka mid nahay dadkii doortaynu ka mid nahay dadka dooran doonaynu ka mid nahay laakiin haddana xadiiskii nabiga ahaa in la isu mahad celiyaa waajib weeye in loo mahad celiyaa waa waajib dhalinyarada mustaqbalkooda waxaan jecelahay insha Allah ta'ala waxaan aad leeyahay adyab Allah awqatakum as'ad Allah awqatakum wa adyab ayamakum ilaahay waqtigana haydu ku gargaaro ayaamahana haydin barakeeyo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh imakana waxaan u yeerayaa xogaayii hore dawladda hoose Hargeysa agaasimo horena soo ahaa waxa weeye Mawlid Waris Cabdillaahi soo dhow Mawlid dawladdu waa sida hooyadoo kale waxay ka dhigan tahay guriga gubtay hooyo ilmaheedii guriga ka gubtay marka dawladnimada laga hadlayo in saasa u dareemaysaa markay wuxuu kordhaana saay hooyadu u dareentay u dareemaysaa oo kale waa sababta marka ay dawladdu arintan uga gurmatay maanta
ay dhismihii oo dhammaystiran iyo wixii loo baahnaa iyo leydhkii halkan loo keenay markaa horta taas waa taas inaad saa ula socotaan ta kale waxa weeyaan doorashooyin baa inagu soo socda hadda bilaabmay ololahooduba dhow yahay bini aadamka waxna waxa weeyaan qabyaaladoo waa la isku gartaa oo qabyaaladaada waa aqoonsigaaga waa kaarhka aqoonsigaaga oo kale oo waad haysataa dee aqoonsigaagii kaama maqna waxna waxa weeyaan karaamada iyo halka ilaahay kugu abuuray qof walba marka ilaahay abuuro karaamadiisa wuxuu dhigaa halku ku abuuray bini aadamka kale ee ku xeeranoo ereyadaa kula abuurayna karaamadoodu way wadaagaan haddii laydinla yimaado lagu yidhaa aqoonsigaaga u codee dee aqoonsigaaga waad haysataa qoladaadu waa aqoonsigaaga marka aqoonsigaaga ha u codaynina waad leedahay aqoonsigaaga adaa lehe laakiin karaamadaada iyo deegaankaaga iyo ciddaa wax wada leediin u code qalad baa laga fahmaa dowladnimada mucaaradku iyagoo doonaya inay dadka cod ka helaan ay dowlad noqdaan ay xukumaan ayaa haddana dowladnimada nacsiiyaan dowladnimada yaan leedan nacsiinin qof malab waraabinaya intuu halkan idinku yimaado oo reerkiina intoo cod ku siisaan qabyaalad subag idin waraabinaya ma jiro iyo malab madaxweynuu noqonaya qaranku uu noqonaya inta daba yaacaysaana way ka hadhaysaa keligii bay taladu ku soo ururaysaa isagaa taladii laga doonaya marka yaan laydinku jahaynin qabyaaladda iska ilaaliya qabyaaladdu waa taalleedihiin waa saan idin sheego waa aqoonsigiinna waa dadkiinna halka kan sidaa la sheegay suldaan barraa dhagax dhigay ilaaha u naxariistee inankiisina waa ka halkaa fadhiya sudaankaa anigu markii horreysa soo galo suldaan barraa ayaan ugu imi oo dhex fadhiya oo aanu halkan wada seexannay ilaahay ha u naxariisto asaaskii halkan waxay ku tiirsan tahay halkanu dowladdana way ku tiirsan tahay deegaankana way ku tiirsan tahay ganacsatada deegaankan ka soo jeedana way ku tiirsan tahay qurba joogtana way ku tiirsan tahay deegaankan ka soo jeeda intaasoo la isu geeyay bay ku tiirsan tahay waayo anigu markaan joogay xogayaa dowladda hoose inamadii tabantaabo oo aan aad ugu mahadnaqayo raggii soo bilaabay iyo ragga maanta joogay iyo raggii dhexeba oo intaas soo waday way ii yimaadeen iyagoo gaari qaaliyana suuqa ka soo baayacay wax yarna haysta dee lacagtii dowladdan ka bixiyey dowladnimada haddaana dowladda aanan ka qaadaynin dee gaari loogu adeego halkan maan keeni kareen markaa maantana halkan haddaan dowladda laydinka soo qaadin dee waa laydin daawan lahaa un idinkoo gubtay markaa yaan laydin nacsiinin dowladnimada deegaankiinna iyo dadkaa wax wada leedihiin ee ilaahay meel idinku abuuraybaa ayaa wax wada leedihiin oo isku karaamantihiin waxaan soo dhaweynayaa imakana rabaa inaad ila soo dhaweysaan taliyaha madaxweynaha wasiir hore siyaasi cali maxamed waran cadde sayidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ba'd marka hore ilaahay baa mahad leh ilaahay isugu keenay dalkan quruxda badan ee barwaaqada ah ee geel iyo adhiba ilaahay maasheeyey ee muxuu ahaye aan ka soo jeedo oo runtii anigu waxaan garanayaa anigoo yar dagaalkii 64kii ayaa anigoo baqanayo aabbahay dagaalkii markaa uu ku jiro oo aan la socday oo ilaalada ahaa oo intuu muxuu ahaye markii lanaga weeraray dabagoryaale uu dagaalkii galay dabeedna anna uu yidhi halkaa cararo dadkaa qaxaya raac dabeedna isagoo birtii calanka ku taagan oo calankii oo laga yaacay maxamed waran cadde uu ku taagan yahay buu wuxuu yidhi halkaa soo dhaafin carar dadka halkaasi yaacaya raac dabeedna waxaan arkay isagoo calankii intuu u furmi waayo wuxuu doonay markaa calanka inuu furo
caalankana waxa weeyaan dowladaha haddii caalanka laga qabsado waa dowlad jabtay dabeedna markii dadku magaalada ka wada yaaco halkaana ay bahalihii madoobaa iyo taangiyadii soo yaacayaan ayuu ku hadhay dabeedna waxaan is idhi aabbaha dee dabada qabso ha ka teginoo hoos gal dabeedna wuxuu meesha mawd baa yaalle oroo dadkaa yaacaya raac dabeedna dadkii baan daba cararay runtii berigaa wuxuu ku qaatay biladgeesi odaygu dee allahu yarxamu wuu dhintay markaa dhowaan baa dunya soo xidho waa bahal weyn oo ilaa halkaa buuxinayso quruxda aad yaabto markaa haddii la yidhaahdo cali maxamed warax xaguu dagaal ka galay dagaal maan gelin laakiin kii aabbahay uu galay baan arkayey oo calanka soo furayey markaa baashna waa la kala dhexlaa baa layidhi marka haddii layidhi weydiyaano baasha tiri ninka waxaan ka galay dagaalkii burmuu gala talyaaniga iyo ingiriiska may kii soomaalida iyo halkanuu galay laakiin aabbihii buu ahaa isaga moohan aabbihii buu ka dhexlay halkaasaan dabeedna ka soo lugeeyey magaaladan makhaadir balkaa ku taallay halkaa muxuu ahay keyntaas qisada waxay geysay arrintaa anigoo lugeynaya baabuur buu soo saaray waddadaasuu mariyey waxaan xuduudda mari maaye magaaladii halin ka dhowo qoto baan halkaa ka soo galay ninkii makhaayadda haysto reerkaaba halkaasoo warmiyaadu anuu dee labadaas bay gowracmeen oo yaroo cagabaruura ayuu halkii wax igu siiyey halkii baan dabeedna hargeysa ku tegey horta magaaladu waa taariikhdaas anigay leedahayoo waa lugtii ugu horreeyen weligee kadibna maan lugeyn horena maan lugeyn wax baawur anoo wata mooyaane dayrad mooyaane maan socon waa magaaladan lugta ku soo galay waxa weeye raggii iga horreeyey baa hadalka dhameeyey si fiican bay idinku fasireen sidii la sheegay suldaan barre allaha u naxariisto oo ahaa nin firfircoon oo ahaa nin nabadda jecel oo ahaa nin doonayay inuu reerkiisa horuu mariyo oo ay dadka kale intaa dheeraadaan oo habeen iyo maalin aan ka fadhiisan oo aan shaqaysan shaqadiisa aan qabsan inta danta guud qabta buu ahaa ilaahayna ninka dadka u gargaara xataa haddaanu shaqaysan ilaahay wuu u gargaara maanta halkana waxaa nala socday inankiisii oo dariiqii uu jeexay ku jira iyo nabaddii waxaan leeyahay iskuulka maanta markii uu gubtay runtii naxdin bay nagu noqotay waayo waxaynu ogeyn in iskuul ku yaalla meel hawda oo aan magaalo u dhoweyn oo fog oo wakhti ay tahay muxuu ahaay roobku da'ayo oo muxuu ahaay sida loo dhisa aanu aada uga fakarnay laakiin ilaahay mahaddii waxaa markii aanu dowladdaanu ka soo jeednay muxuu idin jecel aanu madaxweyneed u tagnay inuu markiiba naga ajiibay marka wax la qabanayo dowladaha ama dowladda budget baa sanadkii lagu daraa wax sanadkaa la qabanayo iskuulkan kumuu jirin inuu gubanayo lama ogeyn isagoon budget ku jirin dowladda iyo wixii la qoondeeyey ayaa la yidhi degdeg uu amray madaxweyne muxuu ahay la dhiso markaanu u tagnay waxaa kaloo wasaaradda muxuu ahay waxbarashadu oon aada ugu mahadnaqayo wasiirka isaguna si wanaagsan oo gobonnimo ah oo degdeg ah ayuu noola qabtay waxa weeyaan horta taas waxa weeye waa ilaahay mahaddii maanta waa kaalkaa jaajuurka yaalla waa kaa sibirhka yaalla imikaa la bilaabaya markaan imika dhagax dhignay haddii alla yidhaahdo marka waxa weeyaan deegaankeenna dad badan baa idiin yimaada dadkaa badani sidii imika layga horreeye la sheegay waxaa laydin nacsiiyaa dowladnimada iyo dowladdaa maanta idiin soo gurmatay ayaa laydin nacsiiyaa waxaa laydinku nacsiiyaa reer hebel baa tihiin oo haddii reer hebel fuulo haddaba wax dadka loo sheega weeye haddii reer hebel fuulo halkaasaasoo xolka ka leefaysaan wax alle wax ka jiraa ma jiraan sidaa la sheegay nin baa tartama ninkaasuna markuu meesha fuulo shar iyo khayr wixii ilaahay siiyey ayaa ka yimaada laakiin ciidana kama dheregto oo maxaa suxulka malab kama leefto nin walbana waa shaqaale ninka madaxweynaha doonaya waa shaqo tag mushahar buu tegayaa meesha inuu dadkaa wax u qabtana waa la doonaya mid wanaajiyey mid xumeeyey labada waa la helayaa marka horta waxa weeyaan cid qabyaalad baa ku dhergaysaan xaashaa lilaahi qabyaalada qarannima lagu dhergaa halkan idinku
waxaa ka tirsantiin oo tihiin deegaanka Hargeysa afarta dharaare Hargeysa ugu weyn baa mid tihiin doorashadii hore waxbay kaga duwan yihiin qabyaalad baa gundaha dhigtay haddaanu reer hebelnay haddaanu dhacnay inanteedaa guur beelaysa wallood kaa shubtaayo walloonad iga shuban ayaa horta maan taagan waxaa markaa loo baahan yahay oo aan idinkula dardaarmayaa qabyaaladda ha raacina qarannimada raaca sababtan waxaan idin leeyahay haddaad qabyaaladda raacdaan dadku wuu kala qaybsamaya oo reeraa loo kala baxaya haddii reera loo kala baxana qaran ma jiriyo nabadgelyo midna ma jirayso waa maqasheen dhulkanoo dee aan cidina ku gaminoo dhibaatooyin balaayo ka socdaan marka waxaan leeyahay horta qarannimada foodkiinu food qaran oo dalka kala badbaadiya oo aan qabiil ahayn si aynu qarannimo u helo ugu rido oo taa yeela waxaan kaga baxayaa halkan waxaanu keennay muxuu kalolediisa sidii la sheegay soolarkii tuulooyinka badankoodana waa la siinayaa idinkana waxaa idin dheer mishiin haddii la yidhaahdo marka shirarka iyo waxaa qabsanaysaan inta kale soolarka idin anfacaya laakiin marka shirarkii waxaa la qabanaya halkan la joogaa ma xafladaha inaa hesheen mishiin idin shaqeeya oo shidaal ku shaqaynaya waxaa kale oo muxuu ahaayey aanu wadnaa isagana in la dhiso iskuulkii degmada sabab wanaag ee jiingadu kacday kiina hawshiisii alaabtiisii horeysana waanu wadnaa isagana waxaan doonaa intaanu dumino gebigiisaba inaanu iskuul cusub oo casri ah ay dowladdu ka dhisto waxaa la yidhi naase la nuuga nabad baa leh kharash badan iyo xoolo badanna dowlad baa leh dowladda yaan idinka fogeyn waxaa la yidhi awrkaa cirka haddaad muxuu ahaye awrkaaga jeer uga tuurto bini aadamku wuxuu ku xisaabtamaa waxa maanta yaalla waxaa ku xisaabtantaan dowladdaasuna sidaasay inoogu heelan tahay innaguna inaynu muxuu ahaye nabadgelyada iyo dowladnimada ilaalinno waxaa kaloo kaga baxaya dalka laba meelood baa ugu qiimo badan qaar baa meelaha waxay ka yidhaahdaan maxaa reerkan loo qabtay maxaa reerka loo qabtay muxuu hebel u qabtay muxuu madaxweyne u qabtay laba arrimood baan idiin sheegaya saddex arrimood mid waxa weeye dadka bini aadankii irsaaqada ugu jeceliyay lacagta ayuu ugu jeceliyay waa xeelada dadku ku wada walaaloobay ee Soomaaliland wax ku leedahay ninka hayaa waa adeerkiina idinku ka soo jeeda talabaad waa qiimo badan talabaad reerkan la isugu daray waxa weeye amniga qarankan min daraf ilaa daraf cid lagu aaminay turku ku sitaa waa inay idinka soo jeedo waxa weeyaan janaal dabagal weey marka ninka isagoo kaba bahalkii cagba jaangariya sita intuu halkeedii ku yimaada yidhahda nabadda dumiyo dagaalamo haddaynu wax weyno waa inaan lagu kala bixin meesha oo Hargeysa dhul kala dhiga oo jalanka muxuu ahaay laga qaada awoodda jalanku waayo jalanku xustaa sharaftiina hadduu ku fashilmo jalanku nabadgelyada dhammaantiin fashilin baatiin bini aadamka marka la dooray waxaa la yidhaahdaa warri horta ninkaa hebel muxuu ahaa ama garta loo fadhiisto waxaa waa hebel waa ninkii wanaagsanaa caynka ahaaye muxuu ahaaye saldhigga wanaagsan lahaa geedka wanaagsan ka soo jeeday midna waxaa la yidhaha alka waxarkaa waxba hadda lamama tijaabin ninkii taariikhda reerkoodu leeyahay ayaa qofka lagu abtiriyaa marka waxa weeye haddii maanta aa ku gumowdaan oo nabadgelyada aa booliis wada noqon weydaan oo meel walba idinku soo taagnaan wey oo cid walba u qori weydaan muxuu ahaye ka saari weydaan xumaanta iyo wax idinku wado waxa weeyaan dib dambe soo koob shaah la idinka shubanaya siyaasad waxaan kaga baxay dalkana u feejignaada gobolkiina qabyaalada aynu ku shaqeynayno waxa weeye qabyaalada inoogu hooseyn kula dardaarmaya waa gobolaa loo tartamayaa Hargeysa tihiin caasimadii qaranka tihiin meesha ugu qiimaha ka soo jeedaan qabyaaladeenu waa gobolka Maroodi Sheekh qabyaalad ka hooseysa oo reer hebel iyo reer hebel sidii la sheegay reer hebel waad u dhalatay
cid ku siinaysa ama cid kaa saari kartaa ma jirto kaana ku abshira aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaan ahay nin oday ah oo xanuunsanaya weliba oo faaligi yar taabtay oon awooddiisu fiicnayn xalayto oo keliya inta dhibaatay gaadha ilaahunbaa qiyaasi kara oon habeen gurigiisa ka maqnaan karin maxaan haddana ka fadhiyi waaye waxaan ka fadhiyi waayey waxaan arkay gurigaygii oo laysku haysta aqalkaygii oo laysku haystaan arkay taasaa i soo kicisay cagu imaka way gariirayeenoo dhulka aad uma hayn karayo waxaan idiin sheegayaa hadalka badin maayo warar badan baa jira waxbaa laysa dhex qaadaya marka u horeeya horta waxaanu u soconnay dan aanu leenoo dantii guriga iyaga ayaanu u soconno taa odayaashu ka warrameenoo boodhankaa gubtaya nin kastoo maqal siyaasadu maanaan socon iyadu way noo dambaysaa kubad baa la cayaarayaa ninka goolka sii daaya aqalkiisa ku sii daaya jecel in laga helo waa adiya ninimada waxaan raacinayaa sidaa weega ragga madaxdiinna oo dhan waa taa ehelkiinna labeentiisu waa taa ninka dawladda idin nacsiinaya wuxuu idin nacsiinaya intiinna haddii aan nacdaanna qayrkiin baa ka hadhi doontaan qayrkiin ayaa ka hadhi doontaan haddana waxaan u yeedhayaa suldaan cabdiraxmaan xamuud maxamed soo dhowo suldaan mid waa mahadcelinaan uga mahadcelinayo dowladda qaranka jamhuuriyadda somalilan ee aanu matalayno ee naloo tuhmayo waxaanu ka soo qaadnaanu haynaanu ku wareejinay dhallinyartaa sharaftiiyo qiimaha badan lee guddidahay taban taabo itusoo taabsii waxay u baahnaayeen ubadkaa daryeel ahaa waxbarasho ahaa ee qadarku keenay inaanu sidii ugu dhaqsaha badnayd uga qayb qaadannay annagoon eegayn waxa meesha socday kotakuteenka ee aanu eegayno waxqabadkii dhallinyartu siday wax ugu qabanayaan dhallinyarta ay mas-uulka ka yihiin aad baan idinka mahad celinayaa guddida taban taabo ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro midna waxaan uga mahad celinayaa dowladda jamhuuriyadda somalilan aan leeyahay waad ku mahadsantihiin laa ashuru alwaja wixii aad dadkii aad dowladda u haydeen maadaamood iyadoon kooba noqon aad maanta dhagaxii uga horraysa dhigteen horna aad qayb uga haydeen waanu idinka mahad celinna labaadka waxaan taabanayaa waxaa la yidhi been fakatay run ma gaadho waxay taabtay anigoo dhaqankii deegaankan ka soo jeeday ah beenta ay wadaan dad naga mid ah oo ah dadkii deegaanka deganaa ayaa laga tallaabsaday oo dad inta hargeysa laga soo guray maatiya oo ubad leh oo dumar leh oo carruur leh basas lagu soo guray ayaa kaymaha xalay aanu ku soo weydaaranay iyagoo baabuurkana kula jabay ay halkaa biyola'aan iyo cuntola'aan baa ay ugu bakteeyaan waa ayaan darro haddaad kii deegaankaaga deganaa ee sharafta kaa mudnaa inaad u timaadda kaa mudnaa ee waxaad doonaysa inaad ka dhaadhiciso aad wax ka dhaadhici kari weyde ood wax lala safaari cuntuma la safaari gelin jiray aad safaari hargeysa ka soo qaadayso wanaag ku geynayso adoo nin weji kaga doonaya ceebbaydu ku tay dhaqan maaha sharaf maaha walaalayaal waxa meel lagu maraa oo meel wadda toosa dadka loo jeexaa waxaad haysa dadkaagii may marana way joogaan deegaankaas way buuxasa wanaag leedhadaa iyo inta xukuntaaba dadkeedina waa joogaan nusqaan weyn bay kugu tahay inaad dad dusha kaga keento ood iyagii ka aamin baxdo ceeb baydu ku tahay kana digtoonaada waxaanan idin leeyahay war reerka isxaaq leedhaa waa mid ninkii kala gurayo haddaad saddex u kala fadhidaan jabhadood iyo saddex kaba kala fadhidaan idaga idii taallaa midnima haddee wax idii goyn weyday war dadka beenta kala fadhiisto guryihiina fadhiya waxaydaan hayn dadkaa soo hogaaminina ayaan leeyahay taasna waa iga dardaaran waxaan halkan leeyahay martida iyo odayaasha dhaqanka nala socda ee maanta aanu shalay ku wada soconnay waxaan maragashanayaan ilaahay la hortegaynaa dhammaantayba annagoon cidna wadan wixii maatiyaan halkaa ku soo dhaafnay iyo dhibaatee yaallay oo badnaay ayaa laydinka baahan yahay inaad ka marakacdaan oo tidhaahdaan war ka daaya dadka sidan oo ilaahayna ka baqa intaasaan iska codsanayaa odayaasha waxgaradkayga waaweyn ee la socdaa ee gadhcasta leh
waxgarad kale ilmaada reeyal hadeenaan maanta runta ka sheegin wallahi wax kale aynan ka sheegin marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku soo dhaweynayaa suldaanka guud ee Isxaaq Suldaan Maxamed Suldaan Xasan Barre soo dhawo suldaan bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayyidina wa nabiyina Muhammad aad baan runtii aan ugu faraxsanahay maalmaha ka mid ah inaan taaganahay halkii Ilaahay uu naxariistay aaba taagnaa oo waqti badan ka soo wareegay maanta Ilaahay baan ugu mahadnaqayaa inaan qayb ka noqdo in badan oo waxtarkiisa aan ka qayb qaadanayay iskuulkan inaan saakana ka qayb noqdo waxaan iyana u mahad celinayaa wafdigan aan wada soconay runtii oo iyaguna qayb laxaadla ka qaatay sidii arrinta imika halkan taalee la bilaabaya ay u dhamaystirbilayd iyagana aad baan ugu mahad celinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay hadday tahay xukuumad hadday tahay qoyska halkan intaba waxaan ugu mahad celinayaa aad baa u mahadsantiin dadkiinii iyo ardaydiinii iyo deegaankiinii baa wax u qabateen waa ku mahadsantiin waxaan kaloo u mahad celinayaa inta ay soo bedelayeen dhalinyarada khayrka qabta ee tabantaabo oo iyagu halkaa soo gaarsiiyey laambaqaadkeedii oo intaasoo jeer isbedelay oo u taagan horumarka inay ka shaqeeyeen deegaanka oo dhan ee aan ku koobnayn iskuulkee laakiin deegaanka oo dhan isu taagay inay ka shaqeeyeen iyagana aad baan ugu mahad celinayaa waananu garab taagannahay mar kasta iyo meel kastaba sidii aan wax ula qaban kari lahayn intii aanu karno taana waxaan leeyahay tabantaabo iyo ragga dadaalaya ee aqoon-yahanka ah waxay u dadaalayaan inay dadkooda iyo ubadkooda ay runtii kaalin fog gaadhsiiyaan waxa aan iyana kelmad odhanaya ardayda maanta halkan joogta waa madaxdii berito iskuulkaa maanta ay ku jirtaane boardingka ah rag horaa ka soo baxay oo madaxweyneyaal noqday wasiirna noqday dalka soo xukumay amba waxay ka soo baxeen boarding la odhan jiray sheekh wakhtiyadanoo kale la miduna amba boarding la odhan jiray camuud ayay ka soo baxeen oo sidanuun ahaa mar dambay deetan noqdeen madax dalkoodii xukumeen madaxweyneyaal ka noqdeen ra'iisul wasaareyaal ka noqdeen wasiirra ka noqdeen idina waxaa laydinga doonayaa dadaal inaad ku fikirtaan sidaa maanta laydiigu dadaalayo idina inaad deegaanka ugu dadaashaan hadhow halkan waynu ka soo bixi jaamacadaha hargeysaydun iman niman waxbartay oo dalka xukumay noqonayna hamigiinu idina fogaado oo waxaa laydiin dhigaya aad noqotaan cid ku dadaasha oo higsanaysa inay dalkan xukumaan oo iyaga kuwa waxtara hadhow ay noqdaan intaasaan leeyahay ardaydana deegaankana waxaan leeyahay deegaanku wuu ballaadhan yahay fikraddaa horta anaa lahaa in laydii keeno soolarta anaa soo jeediyey in la keeno soolar tuuliyowgeenna waayo waxaan arkay magaalooyinka kaloo wada iftiimaya oo kuwana ay damyihiin intaana ku koobnaan mayso waxaase deegaanka laga rabaa inaynu isku xidhnaano magaalo iyo kii miyi iyo kii siyaasiga iyo kii madax dhaqameedka hadday intaas isku xidhmaan wax kastoo baahidiinna ah iyo mid guda iyo mid dabadaba way daboolmaysaa layndii iman maayo marka wax layndiga baahan yihiin laakiin waxaa mar walba joogta noqon doona inaa isku xidhnaanshaheenna magaalo iyo miyi isku xidhnaado si horumarku uu korco taana waxaa ka shaqayn doona dhalinyaro indii kacday baa joogta oo qurux badan oo waxbaratay siyaasiyiintiinnii baa joogta iyo indii heegana iyo odayaashiioo iyaduna ku xidhan intaas markay isku xidhmaan baahidu way daboolantaa ilaahayna wuu la qabtaa taana waxaan leeyahay dadaalka aan muujinno isku xidhnaanta aan muujinno waxaa layndiga doonayaa idinkana waxa weeye inaad ku xidhnaataan odayaashiinu halka indigu taliyaan taladu waa maraad garan weyda baa layidhi maraad gaadhi weydo talada gartabaan leeya marka la gaadhi waaye ha gaadhinaye odayaashiina soo jabay iyo talaqabaynkiinna caqliga ilaahay saaxiibka uga dhigay wixii ay arkayaanee fogaal aragga ah la fahmay idinkuna oo ha noqonina qaar dee ka horyibi qaata taladooda ay indigula taliyaan waayo ninka talinayaa berigii hore iyo wakhtiyadii hore iyo odayaashiintaanu ka soo gaadhnay talaqabeen talada la weydiiyo
iyo nin aan shirkaba lagu soo darsan iyo nin xanta laga ilaaliyo xanta gudbiya way qaybsanaayeen maanta la kala garan maayo nin waliba idaacad buu soo fadhiisanayaa wuxuu doonaa buu akhrinayaa ninkii tala qabeenka ahaa garan maysid kii talada wanaagsanaa garan maysid kii talada xumaa baa la qaadanaya oo sacabka loo garaacaya oo tiisi lagu soconaya caqligeenna ilaahay wuxuu inoo siiyey inaynu ku kala saarno saxa iyo khaladka saxuna waa mid khaladkuna waa mid waxa u dhaxeeya waa wax ishtabahaada saxa aan raacno saxu waa deegaankeenna waa caasimadaynu ku noolnay waa dhulkeenna aynu ka shaqaysanno waa waddooyinkiisa iyo inagoo kala weji dadbin maxaa inoo dana caqligiina tuujiya maxaa dana maxaa saxa saxu waa maxay khaladkuse waa maxay saxu waxa weeye inaad ogaato qofkaatay iyo waxaa tahay iyo halkaad ku nooshay khaladku waxa weeye inaad noqoto waxaanad ahayn waa khalad ma noqon kartid halkaasuu ilaahay kugu beero intaynu rarnay iminka qaadi karamayno meel kale noqon karamayno kaasaa ina horran inaynu ka shaqaysanno oo aynu isku xidhna halkaa ilaa Hargeysa waddo sidaynu dhigi karnaa sidee baynu sanduuq u samayn karnaa aynu ku ururino $1 waa dan inoo taalla innaga muhiimadeennu waa taa aad iyo aadna waa mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay khayrka hayna waafajiyo dembigeenna iyo dembigii waalidkeen baa allaha dhaafo intii dhimatay allaha u naxariisto inta bugta allaha caafiyo xumaan oo dhan allaha inaga hayo dalkayga dadkaba allaha inoo barakeeyo waxaynu ilaahay weydiisanaa maxay ahaydeen horumarkaas oo mid diineed iyo mid dhaqan iyo mid dhaqaalaba allahayna siiyo ilaahay ubadkeenna ha inoo barakeeyo ubadkaa wax baranayna kuwii darajo ka gaadha allaha ka dhigo ilaahay ha ka dhigo aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu